magaalada Jigjigana guddiga qabanqaabada caleemasaarka mid ka mid ah beelaha degada deegaanka oo halkaas ku caleemasaari doona ugaas ay dooran doonaan ayaa waxa Jigjiga ay ku yeesheen kulan ay ku shaaciyeen xilliga uu caleemasaarku qabsoomayo wariyahayaga magaalada Jigjiga Axmed Najaashi ayaa ka waramay guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka ugaaska beelaha wiye ee degan dalka Itoobiya oo kulan ku yeeshay magaalada Jigjiga ayaa sheegay in dhacayso xafladda caleemasaarka ugaaska guud ee beelaha wiye 26 January ee sanadka 2020 iyadoo ay ka dhacayso magaalada Baabile kulanka lagu shaacinayay xilliga ay dhacayso munaasabadda caleemasaarka ugaaska ayaa waxa ka soo qayb galay dad weyn tiro badan oo isku jira ismo culumo iyo waliba sidoo kale haween ay dhalinyaro Sultan Abdullahi Sultan Sigid oo hadal ka horeeyay ayaa sheegay in maanta ay jireen cid ka hortaagan in beelaha wiye ay ayahooda ka wada tashadaan isla markaasna ay yeeshaan hoggaan loo dhan yahay oo beesha hogaamiya waxaan idinku yeedhnay danaysiga inaan ka baxno oo aynu dhisno guurtii maamul ka kooban salaadiin iyo ugaasyo iyo imaamyo iyo magacyo badan baynu sheegnaa malaaqyo ka kooban oo Itoobiya ka jira in la doorto oo danta hawiye ka shaqeeya oo aan dantiisa khaaska ah ku ugaarsanaynin magaca hawiye yaani idinku yeedhnay inaad doorataan haddii la yidhaahdo waxaan leenahay hawiye waan u baaqaynaa haysu yimaado dantiisa ha ka hadlo danta kililkiisa iyo danta dalkiisa labadaba ha ka hadlo haysugu yimaado maamulkii la talin lahaa ee hawsha wadi lahaa ee hawiyena halkaas lagu magacaabi doona haddii Ilaahay yidhaahdo ugaas Cabdulqaadir ayaa kula dardaarmay waxgaradka dhalinyarada ka soo jeeda beesha hawiye inay ka qayb qaataan xafladda caleemasaarka isagoona dhan kale goosha xafladda caleemasaarka ku martiqaaday ismida dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed dhammaan beelaha hawiye dal iyo dibid jooga in ay ka qayb galaan kana qayb qaataan si ay u helaan golaha dhaqanka dad dhaqan la'aan ma noqon karo wixii dhaqan la'aan noqdana dhaqanku ka baxa la yiraahdaa dhaqanku hebel ka baxay macnaheedu wuu lume ayay ka dhigan tahay si aanan ummadani u lumin ayaa darteeda in golaha dhaqan ee midaysan in loo sameeyo ay lagama maarmaan noqotay insha Allah ta'ala waana lagu guuleystay waxaana codsanaynaa dal iyo dibidba meel ay joogaan in ay ka qayb galaan dadka magacan maxaan ku yiraahdaa beelaha hawiye ka tirsan beelaha Soomaaliyeed ee awalaalanahay in ay si buuxda uga qayb galaan ma aha golahan gola laga leeyahay cidna laga leeyahay ma aha ugaasiyada suldaanada haweenka iyo dhalinta ka soo qayb gashay kulankan ayaa soo dhaweeyay in beelaha wiye ay yeeshaan ugaas loo bixin yahay waxa halkan inoogu yeedhay qolada guddiga qabanqaabada ay noo sheegeen waa shaacinta muddada caleemasaarka ugaaska beelaha hawiye ee Itoobiya mar hadday sidaa tahay waxaan anagu soo dhaweynaynaa oo aan idinka aqbalay in uu shirka qabsoomo waana maalin farxad leh waxaana diyaar u nahay dal iyo dibadba inaan ka qayb galno shirkaas caleemasaarkiisa haddii loo yiraahdo taasoo lagu dhisayo guddiga beelaha hawiyana lagu dhisayo ee taageeri doona ama garab istaagi doona ugaaska guud ee beelaha Allahay adeerkay soo dhawow waan kugu faraxsanahay waana ku garab taaganahay insha Allah mar walba waan ku garab taaganahay annaguna waxaan leenahay gacantayada wixii aan xoog iyo maal wixii aan hayno meel aan joognaba iyo dal iyo dibad nin walba meeshuu joogo waanu ku taageeraynaa aad baan u faraxsanahay hadalka xataa ma karayo maanta intan oo dhan baa isku iman ma lahayn marnaba waa la isku imanayaa wiya inta leeg oo magaalada isku iman maalan lahayn waa aadna waan ugu faraxsanahay inaan doorano suldaanka isku soo wada duub waa markii ugu horeysay ee beelaha wiye ee degan dalkan Itoobiya ay yeeshaan golo dhaqan iyo ugaas guud oo wada matala beelaha ku boobay hawiye Axmed Ibrahim Axmed Najaash RTN Jigjiga